بسم الله الرحمن الرحيم. halkani aan dhex taagannahay waxa weeye beer ay ka baxayso qudaarta loo yaqaano koostada. daawade weligaa ma aragtay koosto beer ku taallo ama koosto la gurahayo. waa macallin Qadaafi oo gurahayo koosto ayuu gurayaa. idib macallin tuse daawadayaashayda. waa kaas weligaa ma aragtay koosto adiga suuqa ayaa ka soo iibsataa kaliya waad karsataa kaliya. maanta waxaan ka soo dhaxadlaynaa beer ka mid ah beeraha degmada Afgooye. waa beer ay ka baxayso koostada. waa kana macallin Qadaafi saaxiibkii oo gurayo. halkaan ayaan koosto ka gurnaynaa maanta insha Allah taala. waa nala siiyey koostadan waa hadiyo ama gifti ama ciid mubaarak weeye. halka dadka ay iska siiyaan ciid mubaaraga lacag iyo waxyaabo kale. anaga laakiin beerta markaa imaanay ninkii lahaay wuxuu nagu casuumay ama nagu marti qaaday inaan gurno koosto iyo wixii kale oo na anfacayo. waa koosto insha Allah taala intii markaasi aan ka guran karno ayaan gurnaynaa insha Allah taala oo isla markaasi naga fiic doonto. waa koosto bixaysa ku aadi macallin daar ku aadi kaamirada. ma sha Allah ilaahu barakay ninkii lahaay beertan. koosto weeye oo si fiican u baxday oo aad u balbalaaran yaa ciyaal xamar maxay ka yaqaaniin koosto waxay u maleeyaan bocboc maaya. waa koosto bocboc oo xaafadaha Muqdisho ka baxa maaha. waa koostadii markaasi la karsanayay ayada yaanyada isku daraayay suuq bakaara lagu gadaayay ma garatay. adiga waxa aragtay iyadoo miis saaran laakiin anaga waxaan nasiib u yeelanay inaan dhex imaano beertii ay ka baxaysay. falilahi alxamdu washukru. waa kana macallin Qadaafi aad buu u yaqaanaa macallin Qadaafi qudaarta qaybeed kala duwan. macallin Qadaafi wuxuu ku soo barbaaray degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. waa nin aad iyo aad u yaqaano dhaqanka beeraha ma sha Allah. macallin Qadaafi weli wuxuu gurayaa koostada ayuu gurayaa. halkii xirmo oo koostada maxaa loo yaqaanaa daawadayaal commenti ku soo qoro. halkii maas ama halkii xirmo anaaba sheegabo ya maas ayaa la yiraahdaa. marka waxaan rabay inaan hal xiraale ka dhigo ama aan ka dhigo homework ama shaqo guri laakiin aniga ayay iga soo fakatay afka ayaa iga soo dafay. waan ka xumahay. waxaan rabay inaan ku xujeysto ciyaal xamar oo iraahdo sheeg halkii xirmo ee koostada maxaa loo yaqaanaa. durbadiiba jawaabta aniga ayay afkeeda ka soo fakatay. dhib malaha waa maas. halkii xirmo ee koostada waxaa loo yaqaanaa maas. intaan ma ah wax badan waayo oo wiiraan 4 biri amal ku karsamayso. 10 xirmo waa 10 maas le 10 maas 20 maas 30 maas ma garatay. haddii laakiin oo la sii kala gogooyo halkii maas waxaa loo yaqaanaa goob soo sida maaha. reexa marka ayagu waxay iibsadaan maas ma iibsadaan waxay iibsadaan wax yar oo markaasi $0 ama 10 kulley ah. intii hal mar dabka lagu shubto digsi lagu shubto ayay markaasi iibsadaan. waxaan loo yaqaanaa hal goob oo baalkii koosta. inta waad arkaysaan ayaan filayaa. weli waa la gurayaa koostada. intaan weli maas ma dhamo. guritaanka ayaa ku socdo. macallin Qadaafi ayaa noo shaqaynayo. macallin Qadaafi ayaa noo shaqaynayo khayr la siiyo. maasha anaga ma naqaan qaabka loo guro maxaa yeelay annagu haddaan nahay reer xamar ma naqaano qaabka loo guro koostada. ilaa annaga beerley ma nihin. Afgooye waxa weeye waa imaan jirnay kaliya laakiin maanta waxaan fursad u helnay inaan imaano beer ka mid ah beeraha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. ma sha Allah wax walba waxa waa la bartaa. anaga laakiin maana baranin qaabka loo guro koostada. koostada waxa weeye waxay leedahay qaab loo guro iyo nidaam loo guro. soo ma garatay ee ma soo ruji iyo soo siib ma ah macal buruqdeeda sax ma ah. haddii kale nabad guur ay ku dhacayo waxaan rabaa isla markii maalmo kadib inay soo fiixdo oo dib u soo dhalato. laakiin hadda kor ayaa laga gurayaa bis si nidaam ah oo habaysan ayaa loo gurayaa. ma sha Allah